barnaamijkan maanta waxaa iskale ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ardayda imtixaanka ku jirta oo kor u dhaafaysa 37,000 oo arday Soomaaliyeed ayaa maanta u baahan inaan u hambalyeeyno u ducayno in Ilaahay waxbarashada iyo imtixaanka ay ku jiraan inuu Ilaahay la garab galo adiguna waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad sii sheegarayso hadduu alla imo waxaan dul istaagi doonaa imtixaanka dugsiga sare 37,000 arday ka badan oo Soomaaliyeed oo imtixaankaasi ku jira ayaan rabaa in aan horta marka koowaad iftiimiyo oo aan dul istaago qodobkayga koowaad ee barnaamijka guud ahaan ardayda Soomaaliyeed imtixaanka ku jira ayaan la hadli doonaa qodobkayga labaadna arrin aad u muhiim ah anigu SSC qaatimo wax badan baan u rajeynayay guusha ay maanta haystaan anigu dagaalkaygu wuxuu ku salaysnaa oo aan la garab taagnaa SSC qaatimo in wax walba sida iyagu ay rabaan loo yeelo wax alla iyo waxa ay doonayaanna ay u hirgalaan waxaa ilaahay mahadii ah wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya in maanta imtixaan ay ka qaadayso ardada SSC qaatimo waa guul weyn oo la gaaray ayadana muhiim bay noo tahay waa qodobkayga labaad qodobka saddexaadna waxaan iftiimin doonaa hambalyada madaxda dowlad goboleedka SSC qaatimo iyo guud ahaan bajaaliyada reer SSC qaatimo iyo shacabka taageersanaa qadiyadan iyo goori maamulkan ka madax bannaan Hargeysa markii hore aan u dagaalanay sida iyaguna ay ugu hambalyeynayaan shacabka SSC qaatimo ardaydoodoo maanta imtixaan u fadhiyana aad iyo aad ayaan u iftiimin doonaa dhammaantiin soo dhawaada waxaad iga daawanaysaa facebooka pageka Cabdullaahi Balwaan maanta siyaasad ma wado maanta karbaash iyo sir siyaasadeed intaba kama sheekay doono muuqaalkan waxaa iskale ardayda Soomaaliyeed waxbarta aan barwaaqo gaarin waa wax weyn waa wax aad u qiimo badan marka hore waxaan u hambalyeeyaa u ducaynayaa guud ahaan ardayda Soomaaliyeed walaalahay wiilashayda gabdhahayga imtixaanka u fadhiya waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin rajeynayaa in Ilaahay idin fududeeyo imtixaanka aad ku jirtaan waxaan nasiib wanaaga waxbarashada waa muhiim waan wada ognahay in wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta maanta ay ku dhawaaqaan in ka badan 37,000 oo arday Soomaaliyeed in imtixaanka dugsiga sare ay ku jiraan bogaadin bay wasaaraddu maanta mudan tahay wasaaradda waxbarashada maanta bogaadin bay mudan tahay dhallaankeennana maanta farxad bay naga wada mudan yihiin fadlan muuqaalka sheergareeya ardaydaasi imtixaanka u fadhiya si guud waan idinkugu hambalyeynaya waxaan idin rajeynayaa inaad guulaysataan waxaan idinka wada sugaynaa natiijo wanaagsan waxaa muuqaalkan daawanaya aabe iyo hooyo caruurtooda ay imtixaankaasi ugu jiraan oo muuqaalkan ka daawanaya dunida dacaladeeda qaar gudihii Soomaaliya jooga oo dhammaantoodba wadnaha farta ku haya ee guusha caruurtooda sugaya horta si guud waxaan u rajeynayaa inay ardaydu guulaystaan si gaar ahaaneed waalidiinta waxaan farayaa haddii imtixaanka mid ka mid ah caruurtiina uu ku dhaco niyadda yaan laga jebinin niyadda ha loo dhiso ha la yidhaahdo waad guulaysatay wax yaraa ku dhimay waad gaari doontaa iyo kelmado lamida dhammaan waalidiinta waxaan ka codsanayaa inaanan la niyad jebin ardayda kuwooda guuldaraystay oo aan dhammaanteen aynu dhahno waad guulaysateen niyad ka wanaagsan ma jiro wiilkaaga iyo gabadhaaduna waxay ku farxayaan markay ku arkaan adigoo sii dhiirigelinaya ha canaananin ha ku qaylinin kelmado kulul ha dhihin waxaad tidhaahdaa wax yaraa ku dhinac waxaan hubaa inuu dadaalka sii lagu jibaanayo laakiin markaad canaan kala duldhacdo ku qayliso gabadhaada iyo wiilkaaguba waxay qaadanayaan go'aan ah in ay waxbarashada ka wada cararaan fadlan waalidiinta Soomaaliyeed ee ardaydooda ama caruurtooda ay imtixaanka ku jiraan waxaan ka codsanayaa inay dhiirigeliyaan ardayda ku wada dhacay intaa kadib maanta waa maalin aniga xaggayga aad u weyn si guud iyo si gaar ahaaneedba maamul ayaan anigu nafteyda u horay u dagaalamay wejigaygii barnaamijka ula imid go'aan cad aan u qaatay maamulka walaalahay SSC qaatimo waxaana u rajeynayay iyaga dooqooda inuu Ilaahay u hirgeliyo waxay jeclaayeen inay Soomaaliya la mid noqdaan oo ay la mid noqdaan maamulada dalka ka jira waxay iska diideen gool isku taag iyo Soomaaliyeed maanta ardayda SSC qaatimo waxay u fadhiyaan imtixaan
وإلهي مهدي وحكوا أنا مهدي امتحان كيف فيك waxba ka jirin hargeysa laga dhodhoowayay meeluu ka shaqaynayo aynan jirin in maanta ay ka gudbeen ardaydii SSC qaatumada ay qaadanayaan imtixaanka sharciga ah ee wasaaradda waxbarashada iyo hidaha waxaan ku faraxsanahay in wasaaradda waxbarashada iyo hidaha maanta ay ka shaqaynayso dhulka SSC qaatumo wasaaraddu maanta hambadii naga badan tahay annagu maanta ardayda la jirnaa idaacadaydu maanta ardayda la jirtaa guriyo gobodhimaan idin rajeynayaan reer SSC qaatumo meesha idinka rabeen maanta taagan tihiin hambalyadu dhinac walba iga soo gaaraysaa jaaliyadda qurbajoogta reer SSC qaatumo jaaliyadii gudaha SSC qaatumo ku sugnayd ama dadkii u dhashay SSC qaatumo gudaha joogay madaxdii SSC qaatumo iyo qof kastoo wanaagga reerkaa jeclaa dhammaantood waa idin hambalyaynayaan anigu mid baan hubaa SSC waa dhaqaaqday maanta wasaaradii waxbarashada iyo tacliinta maanta ma ka howlgelaysaa SSC qaatumo cimaamada aan ku tuurno wasiir faarax cabduqaadir maanta wuxuu naga mudan yahay hambalyo maxaa yeelay dhallaankeenii ayuu maanta gacanta hayaa mustaqbal wanaagsan iyo jihayn iyo waxbarasha loo dhaqaaqay marka reer SSC qaatumo wanaagga iyo talaabta aan maanta qaadeen waan idin hambalyaynayaa bogaadin iyo hambalyo farxadaan idin rajeynayaa maanta ardada iskale halkudhiga barnaamijkaygu waa haddaad damiir leedahay garab istaag ardada waxbarashada ku jirta u ducee muuqaalkana sheergareen intaynu barnaamijka midnimada ku kulmi doono waa cabdullaahi barwaan oo idinle meel walbo dunida aad ka joogtaan waxbarta aan barwaaqo gaarne